hay-adda duulista hawada Soomaaliya iyo maamulka diyaaradaha ee garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadi ee magaalada Muqdisho ayaa 24 saac ka yar waxay kaga jawaabeen tacaddi loo geystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo shalay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. Diyaaradda Kenyan Airways waxaa loo diiday inay ka duusho maanta garoonka Aadan Cadi kadib markii loo sheegay in laga rabo in ay cadeyso tacaddigii lagula kacay 15 qof oo Soomaali ah oo shalay ay tacaddi kugu sameysay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Nairobi. waa tilaabadii ugu horeysay oo dawladda Soomaaliya ay qaado waana arin farxad gelinaysa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaa loo sheegay maamulka diyaaradaha ee Kenyan Airways in ay magdhow bixiso inta aysan magdhow bixin ka hor ay cadeyso wixii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. haddaba dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli kolkii hore la iska dhibaateyn jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed dunida meelaha ay kaga sugan yihiin iska daa magaalada Muqdisho ayaa lagu dhibaateyn jiray, laakiin maanta dawladda Soomaaliya waxay cadeynaysaa in mas'uul ay ka tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed. hay-adda duulista hawada iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa hor istaagay in garoonka Muqdisho ay ka duusho diyaaradda liirada Kenyan Airways sababo la xiriira in ay sharaxaad ka bixiso tacaddiga ay kula kacday, iyagoona markan ay sheegtay in laga rabo xuquuqda muwaadiniinta 15 qof ee shalay ay kula tacadisay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. in ka badan 15 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa 24 saac la soo dhaafay waxa ay ka cabanayeen oo ay baraha bulshada ku baahiyeen in tacaddi loogu geystay magaalada Nairobi. dadka cabanay waxaa ka mid ah siyaasiyiin dawladda ka tirsan iyo wasiiro. waxa ay barahooda bulshada ku sheegeen in la rabo in lagula xisaabtamo diyaaradaha gaar ahaan diyaaradda Kenyan Airways wixii shalay ay ka geysatay magaalada Nairobi oo ay kula kacday 15 muwaadiniin. haddaba aragtidaada waa muhiim sababtoo ah maanta waxaad arkaysaa Soomaaliya gaar ahaan dawladda dhexe oo la xisaabtamaysa diyaarad ajnabi ay leeyihiin oo ku tacadisay dad muwaadiniin Soomaaliyeed. tanina waa cadeyn dawladda Soomaaliya ah markan inay cadeynayso in dawladdu ay mas'uul ka tahay muwaadiniinteeda. aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag sidaad u aragto falkan iyo arintan farxadda gelinaysa muwaadiniinteena Soomaaliyeed.